السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى كحفظيه وحير كادي مركز دقيقة يوجر أنت عندك سؤال وين أيوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأخواتي في الله كسود وهذا بيجكني داع الشو يقعد خير كي وناج وجبرتين ما أنت وحندين وضع أرين آد مهم ورنتي وحيابه اللي جفر حجري كم ده. waxyaabaha lagu farxo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu amray inaan ku farxno oo fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala aan faraxa aan ku badino xuskiisa rasuulka sallallahu alayhi wasallamna waxa uu u sheegay waxa khayr ah uu siiyay in uu sheego maanta khayr fara badan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala nala soo doontay beejkeena haddaan nahay akhyaarta ahlu diinka ku xiran beejka dadka ahlu khayrka si faafiya khayrkan maanta insha Allah codka aad maqlaysaan ee hoos ka yeeraya waa wiil Soomaaliyeed oo aan u bixiyay hadda laga bilaabo waxa lagu yiraahdaa Cabdullaahi baa lagu yiraahdaa adoonka Ilaahay aan magaciisa qarinayo sheegayn ما شاء الله oo in xilli ah gaalnimo ku sugnaa maanta diyaar u ah inuu shahaadateen ka qabsado ayaan haynaa biidin Ilaahi tacaala walaalkeen Cabdullaahi idinka ayaa maqli doona codkiisa meesha uu joogo magaciisa iyo qofka uu yahay midna inaan shaacino ma rabno isna diyaar uma aha laakiin waxaan khuseeyo cibrada العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب waxa weeye cibradu umumka ayay ku fiican tahay ma wanaagsana khaaskeeda in la sheego umumkaas aan muxuu ahaayna anfacayo walaalka Cabdullaahi soo dhawow Allah ku barakeeyo awalan waxaan noo sheegtaa intaan shahaadateynka aan qaban maxaa ku sabab ahaa in aad adoo qof weyn ah islaamka muxuu ahaay ka ridowdo ilaahay baa maxaan ku raahday qalbigeena ha ilaaliye maxaa ku sabab ahaa aad baa umahadsantahay akhi Karim Hussein waan dhawahay waan salaamaya adiga iyo walaalaha daawan iyo kulligiinba awalan naftayda shaydan baa horta awalan sabab u ah sabab kale ma hayo oo qiil kale ma oran karo hase ahaatee waxaa jiray nin walaalaha muslimiinta kamid ah iyo aniga tacaamul xagga dhaqaalaha dhexmareen haddii ayna dhexmareen wuxuu sameeyay kiis lagu soo furay waa ugu xiray iyadoo la heli karo mubarraad fara badan oo lagu xallin karo mushkiladda aniga asaga na dhexalsan dan markii aan xabsi tagay waxaan aniga xanaaqsan isaga iyo qaadigii soo xukumay iyo shaahidiintii iyo dhammaantoodba aanan ahaynin wax diidan nin wax karsan ah in wax lagu leeyahay laakiin la sameyn karo mubarraad fara badan la sameyn karo kadib waxaa dhacday adduun la ku sugmoogaliyahay in aan imid xabsi kadib markaan xabsi imid waxaan la kulmay dhalinyaro masiixiyiina iyagana waa waxaan aragtay anigu xanaaqsan ficlan isaga iyo qaadigii iyo adduun la ku sugmoogay manhajku ugu xukumay kulligoodba waxay igu soo dhaweeyeen qorii masiixiyiinta markay khaladku yahay diinta islaamka uusan ahayn qaadiga iyo shakhsigaba marka haddaa soo gashay masiixiyaddu inaad ka heli doontid tawasul fara badan xagga qalbiga iyo wax walba annaga ayaa sajidi doonaa mashaakisha diinta lagu leeyahay qaab noocaas oo kala marka naftayda shaydaan baa qurxiyay sidaas ayaan uga fogaaday xarigii ilaahay mudan ku dhex jiray akhiran waxa soo wajahay walbahaar iyo walwal fara badan cabsi fara badan cibaado la'aan salaadii hore aan aqaanay islaamku tukan jiray salaada masiixiyiinta oo farq weyn u dhaxayso haddii la ku soo yahay iyo qanaacada islaamka ku qobi jiray qanaacada masiixiyiinta farq weyn u dhaxayso akhiran waxaan go'aansaday waqtigeedan la tashaday inaan ilaahay u toobadkeeno ilaahayna dib ugu soo laabto isagana aan tala saarto maadaama uu yahay midka kaliya ee la tala saaran karo marka umuuman saasan oran karaa الله أكبر إخواني في الله سي شير قرية برنامجك وحا خيرك وحوي يعني إن شير قرينو وذاقنوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بإله سبحانه وتعالى ليه وحوي وحن سكو قرقار سنة أيو خير بدن تحي قف الشيء أو ما أنت نور الشيء أيوك مارك تاي كسي قيمة بدن هاي قف إله سبحانه وتعالى إنه النار كبد بادي ووحادي آدوين ومقصد شرع أوي
waa waxaan u wada joogno waa waxaan ugu faraxno qof markuu diinta ilaahay kusoo noqdo uu muxuu ahay gaal ahaa uu soo galo waa waxaan ugu faraxno qof noo dhashay buu nooga qiimo badan yahay runtii qof ilaahay subxaanahu watacaala uu naar kaaga badbaadiyo ayuu leeyahay rasuulka sal ly slam caliow ayaa kaaga wanaag badan inaad geela kiisa gudguduudan hesho maanta mercedes benis iyo waxa weeyaan baabuurta borjka iyo la yiraahdo qurquruxda badan oo aadka u qaaliga dhowrka boqol oo kun oo dollar ah waxa nooga qiimo badan hal qof oo ilaahay subxaanahu watacaala uu naar ka badbaadiyo allahu akbar niraano walillahi alxamdu walaalkeen cabdillaahi anaa u bixiyay magacaas ma leh magac buu leeyahay meeshuu ka yimid meeshuu joogo siduu yahay intaba uu ii sheegay laakiin asna diyaar uma aha inuu hadda faafiyo anna diyaar uma ahi mar hadduusan diyaar u ahayn codka inuu nala wadaago ayuu go-aansaday waxaan jecelnahay inaan shahaadateynka u qabanno qabla dalika insha allahu tacaala ayaan rabnaa dhowr su-aalood inaan sii weydiino si cibro ay u noqoto oo looga cibro qaato ikhwaani fillah sii share gareeya please and please walaal cabdillaahi waxaad nooga warantaa meesha aad ku jirtay macnaha oo xabsiga ah meeqa sano weeye inteedsa hadda aad qof gaala ahayd oo diin la-aan ah ساي مقشع هلو عبد الله هذا دخلت كسر نقطة عبد الله ما مقشع هادو في عن ها سفي عن هادو خد كاغو في عن يعني سفي عن سؤاله من مغليسي su-aalahayga haddaad maqashay waxaan ku iri meeqa sanaad gaalada ku dhex jirtay maxayse maxaan ku idhahdaaye intaas lacagta dadka ikhwaani fillah raalli ahaada connectionka liita waa qof walaalkeen ah oo ilaahay subxaanahu watacaala hanuunka dib ugu soo celiyey waxaan ku weydiiyey meeqa sanaad ku dhex jirtay gaalnimada iyada ah oo aad maanta diyaarka u tahay inaad dib uga soo noqoto wuu go-ay walaalkeen insha allahu tacaala dib baan ugu celinayaa waa khadkaa aada u liita meel xabsi uu ku jiraa uu kasoo hadlayaa waxa uu ka sheekeeyey in uu u gaaloobay sabab ku kaliftay dad daraaddeed dad baa maxaan ku idhahdaa ku riixay wuxuu yidhi nin baan wada shaqaysan jirnay hanti baa igu fakatay hantidii intii igu fakatay waan u ogolaa oo waan ogaa kadibna waxaa dhacday buu yidhi walaalkan ma uu qabanayo waa khadka aad u ciriiri ah raalli ka ahaada insha allahu shahaadateynka waan u qabanaynaa haddaan hadda liveka ugu qaban weynana biidn illaahi waxaan ugu qaban doonaa si private ah laakiin waad maqlayseen wuxuu ku gaaloobay ama uu sababta inuu gaaloobo u keentay ahayd isagana way soo wacayaa let me end this one isaga dib hay soo wac marka sababta marka ulahayd waxa uu ku sheegay in uu yahay nin ay wada lahaayeen wada shaqaysan jireen ayaa muxuu ahaye ay lacag kaga fakatay lacagtii ku fakatay darteed buu xabsi wuxuu yiri ya allah bismillah ikhwaan raalli ahaada khadka ayaa ciriiri ah meesha uu jooga darteed iyo xabsi asagoo ku jira wuxuu walaalkii ka sheekeeyey marka sababtaas darteed diintii islaamka uga baxay oo qaadiga xukumay طبعا meeshuu joogo waa dul islaam assalaamu calaykum cabdallah halo cabdallah ha cabdallah waa ku maqlaa si fiican baan kuu maqlaa laakiin akhi khadka ciriiri ah raalli ahow meel internetka uu xoogan yahay bal hadday okay shahaadateynka bal iga daba dheh insha allahu tacaala in case uu mar kale go-o
ilaahay khadka noo hagaajiyo hadduu khadka noo hagaago insha allah horaan ugu qabanaynaa shahaadateynka marka wuxuu yidhi ninkaa isaga ah iyo qaadigii xukumay iyo wixii oo dhan baan maxaan ku dhaha ciriiri igu noqday qalbigayga baa ciriiri galay islaamkii baan u xanaaqay anoo sidii ah baan wuxuu yidhi nin iyo qolyo waxaan kula kulmay bahalka la yidhaahdo xabsiga oo christian ah iyagaa yiri buu yidhi noo kaale annagaa diyaar kuu ah deynta kaa bixinayno ciisa ah maxaan ku rahday ninka ah muxuu ahaayey nolosha qabow waxaasaan marka waxaan bilaabay inaan islaamka la challenge gareeyo islaamka inaan challenge ku bilaabo ayaan bilaabay buu yidhi walciyaadu billah saasaana sababtaasaana ka saartay islaamka laakiin alxamdulilah kadib markuu soo gubtay qalbigiisu gubtay aada su-aalo isu weydiiyey ayuu go-aan ku qaatay inuu islaamka dib maanta kusoo noqdo halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum عليكم السلام شيخ واكم مغلا هذا واكم مغلا شيخ ما شاء الله هذا عدك في عين يحي اولا شهادتين كان كوب بلعبينا يقدر بده اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله ورسوله عبد الله ورسوله وأشهد أن عيسى وأشهد أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وروح منه الله أكبر وعفوينه دينة الإسلام كوكو قريبة تهاي اللغة العربية يقانه صادي شيك تقول الإسلام هذا الجوجة ولبع عربة كنا حيران فهم يوحن كهذا يو وما بهندينا تفسير كركو صاروا أول بعد شيكتي أذاك كشيكي إن هذا شك دينة الإسلام أتكقاضي إيشن كقول حين هيد عرو يدقال عاد ماركتاي إن من كاس أقاضي محكمة حكمتي إن كادرتي hadda intuu qadka noo fiican yahay su'aalaha bal kuwayga iyo kuwa dadkaba hadaad ka jawaabi kartid meeqa sanaad ku jirtay xabsiga meeqa sanaad ayaad gaalnimadan ku dhex jirtay akhiyow 4 sano ku jiray inta badan 4 sano xawaalay 3 sano kamid ah waxaan kamid ahaa dalaal baan ku sugnaa qaadi baan ku sugnaa 3 sano kamid ah xawaalay 3 sano kamid ah waa gartay nimankan kugu riixay oo kugu yiri annaga deenka ka bixinayno ciise ku soo dhawow iyo nolosha qabow ma Soomaali bay ahaayeen mise waxay ahaayeen Arab maya Soomaali ma ahayn Arabna ma ahayn waxay ahaayeen dad Afrikaana West Africa u dhashay Nigerian iyo Ghana iyo Sierra Leone iyo Liberia iyo dad noocaas ah ahaayeen daa'iman hadii xabsiyada la soo galo dadka ajaanibta ah marwalba waa saaxiibo oo way iska soo dhaweysaan dadka wadanka u dhashay ka badan marka dad noocaas ah in Afrikaan u badan soo badan iyo masaariq qibtiyiin ah iyo Nigerian iyo maaragtay Sierra Leone iyo whatever Afrikaankaas ah baad isku la jirteen dadka iyaga ahaaba ku bandhigay inay diinkan ka bixinayaan diintoodana kugu soo dhaweeyaan waa su'aal fiican wax Soomaali ah oo xabsiga ku kulanteen iyo ama diin la'aan ah midna ma aragtay ما أرجع واحد صومالي وأنا حبس دين وحبس وكتير صومالي فعلا ما سببنا واحد كسر ضلال يبادين وهايرات المجد وضلت وآب يريها وعن كل صومالي ودت كيسو بقول كي بقول أما فوق بقول كي بقول أوران كرو فوق 100%
la oran karo muslim haddana suu masiir dadku aad bay ula tacajubayeen Soomaali iska daaya ajaanibta iyo madaxa kale iyo waddankan ku suganahay dadku aad bay ula tacajubayeen wax la yaab leh oo qariib ah Allahu akbar jazakallahu khayran ilaahay baa mahadle ilaahay ku soo waafajiyay qalbigaaga sugay dib ugu soo celiyay tawxiidkii ka soo celiyay saddexdii ilaahay iyo shirkiga ka soo celiyay caradii ku haysay maaragtay dadka inaad kala dul dhacdo diinta ilaahaygi ka maaragtay waaniyay oo qalbigaaga sugay baa mahad iska leh maanta waxaad ka tahay wixii ku soo maray xalay dhalay walillaahi alxamdu waxaad ka tahay maxaan ku raadaay ataa'ibu min ad-dambi kama la damba lah wa tawbatu tajibu ma qablaha waxa weeyaan wixii ku soo maray insha Allah ta'ala hawal walin ka seexo waxaasi waxay ku yihiin biidin illaahi ta'ala ajar bay ku yihiin adigana noloshaada iyo qaabkaad u maareyn lahayd sida adigaaba sheegay inaad nolol kulul oo dhib fara badan uu soo maray iyo dhibaato aad maaragtay la kulantay maanta wixii ayaga ahaa waxaa kaa qaboojinayo stresski iyo depressionki aad qaaday iyo madax xanuunkii waa wixii carada ay kugu kaliftay aad maaragtay meesha xun gashay maanta biidin illaahi ta'ala wixii ayaga ahaa way dhammaadeen noloshaada dib u sax walaalaha way kuu soo ducaynayaan biidin illaahi ta'ala hadda wixii ka dambeeya insha Allah ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala isku xir fadlan walaalayaal u soo duceeya ninkaas walaalkeena waa qof Soomaaliyeed cibrada annaga yaan wada leenahay shuqul kuma lihiin waxa la yiraahdo qofka magaciisa inaad fahamtay meeshuu joogo bale waxaan ka aragnay ikhlaas darro iyo dhibaataan ka aragnay kuwa badan oo maaragtay intay waxaas oo kale noogu soo gabadeen tashwiish islaamka ku gelinayo laakiin qofka rabo inuu toos u islaamo wadadii waayadayd waatan magaciisi dib naguma hayo meeshuu joogana dib naguma hayso qolo uu yahayna dan kama lihiin waxa weeye waxaan khuseeyo inuu islaamna leeyahay ilaahay dartiina ay toobado ka tahay marka walaalkeen u duceeya qofkaas walaalkeena oo Soomaaliyeed xabsiga ku jira in ilaahay subhanahu wa ta'ala xabsiga ka sii daayo in ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigiisa sugo walaalkeen waa ku duceynayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigaaga ha ku sugo gumadahaagana diinta ha ku adkeeyo sidoo kale ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanayaa inuu qabri ka sii daayo xabsiga isaga noloshaadana dib u saxo meel khayr qabtana ku dambaysiyo janno ku geeyo waxaan rabaa inaan waxay ku darsado khadka intaan ka bixin akhi soo daa walaalle waxaan rabaa inaan u sharaxo dhammaan walaalayaasha ficlan islaamku waa diin wanaagsan oo aad macaan marka lagu oranayo macaanku ma aha sida sokorta oo kale mid dhadhan macaan xagga qalbiga waxaa dareemi karaa qofkii islaam ahaa oo ka baxay baa dareemi karo banaanka ka taagan أولاً مركي عن فائدة كوسنا في الحقيقة العبادة وحي هذا صار دانتو لطمنا يدبان لقاضي يقصيدين لغو أمانا يو عيسى اعتقاد كمسيحي وكلا مركي كوال وحل وصلوين يا إن أي مسيحين إله قرى أي سنة مسيحين إله لبعض من الصدحات أي سنة ويهي ويلك ربي ويلك ربنا سنة الإسلام كوفهنين أي سنة حين الإسلام كوفهنين إلهي دلي لكن إلهي عن قليل لكن إلهي معناه تقربا إلهي ودوما شو إلهي بيهن ويلك إلهي وحكا دوم بإيسا وحي مسيحين عقيدة اللي رابو عقيدة اللاهود والناصود اللاهود والناصود وحاوية عيسى وبطبق بيهي لما جزء لاهوت يا ناصود مروى ناصود هو بني آدم ناصري وضد إنسان صهيونية إنسان كواحد جل لاهوت يعني بركة وقفي له إسلام صهيوني بأمسين waxay ku leeyihiin markay tukanayaan oo kale walaalkay codkaagii wuu saaranayaan ay baryayaan waxay qudsiinta maryama
oo kale waxay soo qaatay inay dhaxaan yaa waalidatullaahi walaalkan saad maqlayseen wuxuuna siinaya cashar ah wuu ka go-ay hadeer casharka qaabka ay maxaan ku rahdaa dadku lagu soo xerogeliyo in ay marka hore yidhaahdaan hal ilaah baan aaminsannahay kadibna ay u sheegaan waxay aaminsan xaqiiqada marka dambe oo codkaaga wuu go-go-ahaya haddaad maqli kartid maxamed codkaaga walaal wuu go-go-ahaya ha waa ku maqlaa boobsi insha allah codkaaga aad buu u hooseeyaa hadda waa fiican yahay ku soco insha allah kusoo celi naasuud iyo laahuud waa insaan iyo wuxuu wada yahay mar keliya ayuu wuxuu wada yahay ilaah ciise marka wiil ilaahay weeye halkaasaad waday okay waxay ku leeyihiin waa naasuud iyo laahuud waa qof bini aadana iyo ilaahay isdhex galay marka isaga laftigiisa waa ilaahay bay ku leeyihiin kitaabka bibalka dhowr meelood bay kaga qoran tahay inuu leeyahay anigu waxaan ahay ilaahay dhowr meelood bay kaga qoran tahay marka markii aad dhex gashid waxaa lagu barayaa tababar cusub baa kuu furmaysa inaad kusoo dhawaatid hadda inuu ciise yahay ilaahay uusan ahayn bini aadan laakiin ilaahay bini aadan iska dhigay uu yahay maryamana ay tahay hooyadii ilaahay haddii aad su-aalo kasii weydiisatid shaki ku furan waxay ku leeyihiin iimaankaagu maahan mid xoog badan marka iimaanka iska soo dhis xaggeeda meeshii ay kaa shaki saari lahaayeen taasay ku andacoonayaan alxamdulillah qofkii markaa islaam ahaa garta waxay shirkiga islaamka oo qira ilaahay midnimadiisa qofkii qur-aanka la canaananayo oo la oranayo gaf baa samaysay maaha inaad adoonkii xejaysatid marka aad isbarbar dhigtay muqaarano ku samaysid labada diin noocaasa waxay ahayd diinta saxda ah oo xaqiiqada ah ficlan soomaalidu waa ku dhasheen laakiin qofkii ku jiray ka baxo kusoo laabtaa fahmi kara in badan qofka ku dhashay intu fahmi karo kale marka ikhwaani fillah waxaan haysanaa diin wanaagsan oo dhaba oo xaqiiqa ah oo macaan badan oo inta badan haddii alla kusoo noogol yahay qofku uu dareemayo sacaado iyo walwalku ka baaba'ayo waxa ugu weyn ee diinteenna ay ku faani kartana waxay tahay waxdaaniyatullah ilaahay uu mid yahay sallallahu hooyo inaysan dhalin inaan la dilin inaan haddii alla kusoo noogoliyo wax lamida uusan jirin ما شاء الله وفان حدا ساكن كده عن قصنو أنا لبعض وقدر واحد هاي أنو مسلمين بان هاي إسلام ما مغش si fiican baan kuu maqlaa muslimiin baan nahay islaam saxa ma nihin haddaan soomaali nahay warkaagu halkaasuu marayaa haa aad baan kuu maqlaa codkaaga wuu bareeg baa ku jiray go-go-ahayay waan ku fasaxayaa walaalkii cabdullaahi lama yidhaahdo walaalkan waa walaal soomaaliyeed ku xiran xabsi dhulalkaas ah cabdullaahi waan ku fasaxay insha allah walaalkay jazaaka allah khayr haddaad imaqasho hawo ma jirto akhi waan ku fasaxayaa insha allahu tacaala ilaahay baa mahadle ilaahay oo kusoo haneeyey baa mahadle khayr baan kuu rajeynaya insha allah baaraka allahu fiika asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu cabdalla walaal waa ku fasaxay insha allah mar kalean soo wacaynaa marka walaalayaal inuu wax badan noo sheego jeclaan lahaa laakiin xabsi buu ku jiraa ma codka iyo internetka midna ma fiicna saas darteed baan u fasaxayaa laakiin waa nin aad wax badan u og runtiina wax badan laga faa'iidi lahaa ninkan walaalkeen ah waa nin soomaaliyeed oo maaragtay islaamka ka tegey gaaloobay sabab ay dad ku kalifeen siduu ii sheegay darteed wuxuu ku xiran yahay meel dhulalka islaamka ka mid ah wuxuu yidhi sababta lai xiray waxay ahayd nin baanu ganacsi ku wada jirnay oo ajnabi ah dhulka isaga uu joogay kadibna ninkii isaga ahaa ayaa wuxuu yidhi lacag igaga fakatay oo anigaa lacag igu fakatay kadibna wuxuu igu xukumay lacagtii iyo tu kale oo lagu daray
qaadigii baa la ii geeyey xukun baa la igu xukumay jawr aan u arkayay marka isaga ah maadaama uu dulmi xukumay aniga marka wuxuu yiri shaytaan iyo naf baa iga qaalib noqotay waxaan dambigoodan u saariyay diinta waxaan ilagu yiri halkaan la iga soo galay xabsi baa la geeyay xabsiga la geeyayna waxaan kula kulmay niman gaala ahaa oo gaaniyaan iyo maxaan ku raahdaa afrikaan isku jirjira ah oo Egyptian kamid yihiin nimanka la aqbaata nimanka qabtiinta la yiraahdo oo Christianka masaarida ah ay isugu jira nimankii baa ila hadlay waxay u yiraahdeen bir lacagteen waan ka bixinaynaa ku soo dhawow diintan cusub anigoo marka xagga careysan qaadigii iyo dhulkii iyo waxa dhan maxaan ku raahdaa careyga haysa xabsigii aan galayna aan kula kulmay nimankaas baa isu kay kaalmaystay naf iyo shaytaan baa iga xoog batay anoonan caqiidadeyna sideeda kale aan u gaaloobin oo aan diintii ka shakinin ayaan wuxuu yiri caro iyo dagaal diintii baan challenge la bilaabay iyo ilaahay kadibna dhowr sano ku jiray xabsigii dhowr sano kadib hadeer nafsadeyda ciriiri bay dareentay waxaan arkay gaalnimada heerka ay maxaan ku raahdaa ay gaarsiisay anigii baa maxaan ku raahdaa isla ooyay habeen iyo maalin markii aan halkaa gaaray ayaan go'aan qaatay inaan diinta ilaahay ku soo noqdo walilaahi alxamdu meeshaan aan tawxiidka ugu qabanay waxaana weeynin dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed macna nooma sameynayna magaciisa xusno macnaha ma sameynayso meeshuu ku xiran yahay uu joogo inaan sheegno waxa macnaha sameynayo cibrada guud oo wada khusayso walaalayaal faafiya isgaarsiye meelaha joogtaanba qof kaste oo dacwo ilaahay dartii ugu tala galay uu qaadan karaa videogan wuuna isticmaali karaa page-kiisa YouTube-kiisa meel kale uu ku soo sharxi karaa laakiin waxaan ka digayaa qofna inuusan u isticmaalin cinwaan qaldan si qaldan u isticmaalin qofkii sameeya wajigayga magacayga codkayga kulli aan ku dacweyn karaa waxaana weeye wuxuu ku aadi karaa inuu kanaalkiisa ku xirmo ama uu maxaan ku raad dhibaato kala kulmo marka waxaad iska ilaalisaa inaad si xun u isticmaasho dacwad darteed fasax baad u tahay meel kasta aad ku faafin kartaa wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wassalamu alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh